adduunyada rabbi baa iska leh, isaga wuxuu doona bixiya, isagaa wuxuu doona manciyo oo diida. qof walba inaga mid yahay adduunyadan hawo iyo humuum buu leeyahay. hawada iyo humuumtaasi rabitaan baad leedahay, dadaal iyo isku dayna waad bixin. in aadamaha ka midan inaad kaashato waa laga yaabaa, laakiin inay hirgashay inaan hirgelin dadaalkaaga markii laga soo tago doonitaanka rabbi bay ku xidhan tahay subxaanahu wa tacaala. ilaahay cabsihiisa subxaanahu wa tacaala waxay sabab u noqotaa in hamigaaga wanaagsan aad leedahay adduunyadii aakhiraba aad gaadho. haddaan tacliim iyo waxbarasho inaan meel ka gaadhna rabno, haddii aan maamul iyo xukun iyo siyaasad meel inuu ka gaadho qofku ku haminayo oo doonayo, hadduu adduunyo iyo ganacsi iyo dhaqaalo doonayo, hadduu guur iyo guri iyo reer doonayo, hamigaagu dadaalkaaga kadib ducada ilaahay waa waxa koowaad ee laga doonayo. isaga waxaad uga baahan tahay adduunyo iyo aakhiraba inaad weydiisato, isaga inaad barido. inaad baridana waxay u baahan tahay inaad xiriirka aad la leedahay wanaajiso. maaha oo keliya waa iska soo booday oo waan bariyey, ilaahay adna waxaan rabay ii sameey, adna waxaad rabta samayn maayana, sida badan ma shaqayso. ilaahay cabsidiisa aynu isxasuusinaynaa. insha allah salaada cisha aynu soo tukannay, inaan subaxa haddii ilaahay la gaarhsiiya tukannana waa ku hamiyeynaa. waxaan rajaynayaa subaxi cishahan jamaacada ku tukannayna habeenka niska isagoo istaagay bay qofka ula mid tahay oo salaatuleyl iyo qiyaam ku jiray. jamaacada salaad subax haddaan ku darnana fakana maqaama leyla kullah. intaa kulankeenana insha allahu tacaala ajri baan ixtisaabaynaa. saa darteed waxaynu isu dardaarmaynaa mar waliba ilaahay cabsidiisa. adduunyada rabbi baa iska leh, isagaa wuxuu doona bixiya, isagaa wuxuu doona manciyo oo diida. qof walba inaga mid yahay adduunyadan hawo iyo humuum buu leeyahay. hawada iyo humuumtaasi rabitaan baad leedahay, dadaal iyo isku dayna waad bixin. in aadamaha ka midan inaad kaashato waa laga yaabaa, laakiin inay hirgashay inaan hirgelin dadaalkaaga markii laga soo tago doonitaanka rabbi bay ku xidhan tahay subxaanahu wa tacaala. saas darteed waxaan rabaa marka u horeysa inaan iraahdo ilaahay cabsihiisa subxaanahu wa tacaala waxay sabab u noqotaa in hamigaaga wanaagsan aad leedahay adduunyadii aakhiraba aad gaadho. oo dee wax waliba haddii aad wax damac kaa galo, cidda go-aankeeda leh baa la aadaa. haddaad waraaqa rabto, haddaad rabto rusuum in lagaa cafiya halkan aad joogto, cidda go-aan kale iyo saxiixa leh baad aadaa. adigu dadaalo, waraaqdii qoro, asbaabihii ururi. adduunyadan way noqon iyo noqon mayso. doonitaanka ugu dambeeya rabbi baa iskale subxaana wa tacaala. saa darteed dadaalka aad dadaalaysaay waxaa koobaad ee qofka laga rabo inuu rabbi si fiican ugu xidhnaado wey. saa darteed haddaan qurbo joogno iyo haddaan guryaheenni joogno, haddaan tacliim iyo waxbarasho inaan meel ka gaadhna rabno, haddii aan maamul iyo xukun iyo siyaasad meel inuu ka gaadho qofku ku haminayo oo doonayo, hadduu adduunyo iyo ganacsi iyo dhaqaalo doonayo, hadduu guur iyo guri iyo reer doonayo, hamigaagu dadaalkaaga kadib ducada ilaahay waa waxa koowaad ee laga doonayo. cidda maya hadday tiraahdo ay maya tahay waa allah, cidda haa hadday tiraahdo haa ay tahayna waa allah. waxaad soo wado oo dhan ee isku xirxiraysa hargaha haddaan alla haye ku dhihin waxba kama jiro. wax kastood mardaba laguu sameeyo ama wax kaa kala daataanna haddii alla kula damcay way dhici.
mar hadday sidaas tahay iimaanku wuxuu sheegayaa aqliga saxdaana sheegayaa allaha adduunyada saa iskale ee amarkiisa uu ka socdo isaga waxaad uga baahan tahay adduunye iyo aakhiraba inaad weydiisato isaga inaad baridana waxay u baahan tahay inaad xiriirka aad la leedahay wanaajiso maaha oo keliya waa iska soo booday oo waan bariyey ilahay adna waxaan rabay ii sameey adna waxaad rabta samayn maayana sida badan ma shaqayso ducada ilaahay la baryaaye wax ilaahay qadaray buu ku bedelaa qof ay aakharo waxun u qoraa ama adduunka wax bedela ducadaa jira walidaalika nabigana calayhi salaatu wasalaam waa kii laa yaruddu lqadaa ila ducaa wix ilaahay qadaray alla bari unbaa bedeli kara haddii kale ducadii alla barigu macno uma yeesheen ilaa aakharo janno igee haddii naarun kuu qoraydan laga aqbalaynin ducadu macno ma yeelateen saa darteed baa saxaabada qaar ka mida cumar iyo waxay dhihi jireen ilaahu haddaad aakhare ahlu naar nagu qortay hadda ka hor ilaahu naga bedelo aakhare janno nagu qor saa darteed waxaan rabaa inaan ihahda humuumta aynu xambaarsannahay qurbaha loo soo galay duruufta hadda laga sheekeynayay loogu dulqaatay kulaylka gaajada mararka qaarkood ee meeshan gubaarka iyo dabaylaha dhacaya dan iyo duruuf adag oo la marayo in waxay u joogaan waxbarasho intiina badana ina qurbaha iyo khaliijka carruur kala soo carareeno carruur ay ugu badbaadaan bay rabaan markaad waxbarataanna inaad dib u laabataan ama dal kala aadaano mustaqbal dhistaan baad rabtaan noocu dooniya ha noqdo marka rabbi subxaana wa tacaala baryadiisu waa midda koowaad ee qof kasta laga doonayo dadkaa qurbaha joogaa laga rabaa dadka guryahoodii joogaa laga rabaa ilaahay ducada baryadiisu iyadoo intaa qiimo leh oo wax badan bedesha oo qadarka ilaahay duca la aqbalay lagu bedelo haddana lacag maaha oo kharash kaaga bixi maayo safar looma galo oo waqti iyo daal kaa mari mayso xaalad kastood ku sugan tahayna idan iyo fasax uma baahnido cidna kaama celin karto adduunyadu ilaahay haddaad aad ka gasho inaad u calaacashaay inay dadku ogaadaan uma baahnido ceebahaaga la maqlo bini aadamka haddaad dawlad dembi ka gasho inaad iskeento oo qoraal qorto oo fagaaro dadku joogaan oo yar sharaf dhacdaa laga yaabaa tii laakiin ilaahay aad ka gasha ka noqoshadeedu keligaa meel cidlaa waay cidnaba u sheegi maysid intaa kula fadhidaay markaad ilaahaaga hortaagneed baryaysay dembigaad qiratay iyo calaacalkaad calaacashay cidiba kuma oga marka ceebtaaduna waa asturanta calaacalkaagiina waa kuu qarsoon yahay adduunyadan waxaad rabtay baad ku gaari war waxaan lacag la bixinaynin waan waqti ku baxaynin waan ceeb iyo fagaaro ku geynaynin ducada ilaahay baa la helaa saa darteed waxaan rabaa inaan idhaahdo waxaa ugu muhiimsan koobaad ee caawa ay tahay inaan xasuusino ilaahay baryadiisa inaan u baahannahay wey xiriirka ilahay inaan wanaajino inaan u baahannahay wey ama aan taqway alla ka cabsi dhahno ama ilaahay subxaanahu wa tacaala aan wax kaga doonno ilaahay gaal aan rumaysnayn oo xaalad adag markuu galay si daacada u baryay hadduu ka aqbalay adigoo muslim oo salaadihii tukaday dembi yarood gashay haddaad daacad u barida ka aqbali waayo maayo ilahay soo gaalada ma dhihin waidaa rakibuu fi lfulki dacawu llaha mukhlisiina lahu ddiin ilaahay bay baryaan markay dee doomaan raacaan hirku ku kaceen gargaar aadame iyo asnaam ay rumaysnayn ay ka quustaan kadib ilaahay wuu ka aqbalaa kii shalay sanamka caabudayay kii weli gaalka ahaa kii aan ilaahnimadiisa iyo ambiyadiisa rumaysnayn baa xaalad adagoos marayuu duca ka aqbalaa falamaa najaahum ila albari banaanka markuu usoo saaro badihii iyo balaayana kasoo badbaadiya
adigoo tawxiidka qiraya oo shahaadanaya oo salaadii tukanaya oo khayr iyo acmaal badan samaynaya qaladaad yadood samaysay ilaahay daacadda aada u barido ka aqbali waayi maayo. qofkii risiq raba ilaahay baryadiisay ka jirtaa, dadaal baa ku daran. qofkii waxbarasho raba halkan ay jirtaa. qofkii xukun iyo jaga iyo madaxtinimo raba habli mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi nabi sulaymaan sooma dhihin. ilaahay muxuu ka adeejiyey inay ciidan iyo junuudu noqdaan? insi iyo jin baa laga adeejiyey. raggii khubarada dhismaha iyo injineerada ahaa, raggii badaha quusi jiray qawaasiinta ahaa ee insi iska daaya jinka ahaa baa laga adeejiyey. shimbiraa laga adeejiyey inay la shaqeeyaan. intaasoo dhan rabbigii gacanta ku hayay ee sulaymaan intaa siiyey, innagu waxaan rabna soo wax inta aada uga yar maa. innagu humuumteennu intaa maba gaadhsiisnaba. inta yar ee humuumteenna ah markay xadiidkii arbiciinkay wada taqiineen oo nabigu lehi calayhi salaatu wasalaam, ilahay xadiisulqudsi wuxuu yihi yaa cibaadii nawawna awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum. insi iyo jin iyo kidii kore u dambeeya ay yimaadaan ay i wada baryaan, fa acطaytu kula waaxidin mas'alata, mid walba wuxuu raba aan siiyo. maa naqasa dalika mima cindii shay-an ilaa yaa ku dari kara kamaa yanqusu lbaxri idaa udkila. irbad bad la geliyey waxay ka soo qaaday waxba uma dhinto, waxa alla agtiisa wax uma dhinto. ilahi subxaana watacaala aniga adiga inuu waxna siiyo, isaga waxba ku waayi maayo. intaana inuu wax ku waayi maayo. wuxuuna inoo ballan qaaday udcuunii astajib lakum. barya waan idin aqbali. haddii aadamu baryada isku nacaanna isagu baryada wuu ku jeclaadaa, barya la-aantu kugu nacaa. markaad baryi weydo albaabadaa lagaa wada xir, wixii baa kugu wada adkaada. qofkaad u tagtay baa kusoo wada cayriya, xafiiskaad tagta baa lagu soo cayrin, meesha u shaqo tagtana cid kalun baa lagaa horumarin. maxaa sababa? ilaah baad baryi weyda. ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii baad geli, baryadayda kuwa iskala weyn. saa darteed waxaan rabaa naftayda iyo walaalahayba inaan iraahdo xaalado kala duwan buu qofku maraa. mar walbana waxaa qaalib inoo ah halka aada joogto waxaa ka horeeya oo ka weyn waxaad hawaysanayso iyo humuumtaada aad ku taamaysaa ka weyn. intana qof walba haddii la weydiiyo halka aad joogtay meeshaad rabtay ma tahay, wuxuu leeyahay maya, weli waxyar baa ii dhiman, maanan gaarin weli. halkii aad maanta hiigsanaysa markaad tagtay mid kale unbaa kuusii hilaaca. ilaahay ducadiisa iyo baryada uu aqbalaayay meel celisa ma laha. ama ha noqoto khalad aad ka gashay, ama ha noqoto waxaadan mudnayn ood weydiisanayso od ka doonayso. saa darteed ilaahaynu barino. ilaahay markuu umamka ka hadlayay, dabcan qur-aanku wuxuu ina baray ummadii waxay ku jiri kartaa 3 aasaas bay ummad waxtara ku noqon kartaa. 2 ummadaha wadaaga, midna ummadda mu'minada uu ka hadlaya. aayaddii waxaan filayaa suuratu lfatxi aakhirkeeda ee suuratu lfatxi aayadda ugu dambaysa maxay ahayd? muxamedun rasuulu llahi waladiina macahu ashiddaau cala alkufaari ruxamaau baynahum taraahum rukcan sujadan ilaa aakhirkeeda. ilaahay ummadda wuxuu ku tilmaamay ummad iyadu isku xiran oo kalsooni iyo naxariis iyo isgarabsi ka dhexeeya gudaheeda. gudaha waa isku duubanta. cadowgeedana waa dad adagoo iska tiiriyo jacbay iska dhahdaan. allahoodana si wanaagsan bay u caabudaan. taraahum rukcan sujadan ruxamaau baynahum ashiddaau cala alkufaarina waa cadowgii dibadda ahaa. ruxamaau baynahumna waa isku duubnaantii gudaha ahayd. waxaa soo haray xiriirkii rabbigood, taraahum rukcan sujadan waa. adiga marka waxaa lagaa doonayaa mar waliba haddii ummaddii isku duubnayd iyo dowladii xiriirkii wanaagsanaa ee rabbi ka maarmi weyday, iyadoo keli ama ka maaranta baad u malaynaysaa. taasi waa qodobka koobaad ee naftaydiiyo idinkaba inaadan xasuusiyo weligan xasuusnaano aan u baahannahay wey. gaar ahaan waxbarashaad ku jirtaano wattaqu llaha wa yucallimukum allah. ilaahay ka cabsada,
isaga waxbuu idin baraya cilmi buu idin siinaya cabsidii ilaahay baa waxbarashadii u gogol xaarta ducaad la aqbasho hal ducooda aqbasho laga aqbalay ba waxbarashada albaabada kuu furto risiqa adduunyada waasaca kuu furto reer iyo guri wanaagsan kuu furta xil iyo xukun iyo siyaasad kuu horseeda laakiin hadda innagu wixii weynaaya la higsanayay waxaa laga yaabaa cibaadada ka cararkeeda iyo macsiya dambi in lagu raadiyo xadiidkii jaabir radiyallahu anhu warda nabigana waa kii ahaa ina ruuxa alqudus yiri ina ruuxa alqudus nafatha fi ruuxi أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإنه لا يطلب ما عند الله إلا بطاعته طاعة سالة والرادية واحد إلهي كدونيس قول كل بعض أن الحاربين يراهضوا ترى يا دردارا ama dhinacna ka noqonaysa waxa laga doonayo qofka ardayga ee qurbaha jooga waa inuu waqtiga ka faa'iideysto waxbarashadu markii qurba loo galay ugu fiicanta taariikhda waxbarashada haddaad dib ugu noqotaan iyo dadkii wax soo bartay ee cilmiga iyo aqoonta ku caanbaxayna qolkiiba 99 ka badan qurbay u galeen waxbarasho markaad qoyskiina la joogto iyo gurigiina joogto waxa ku mashquuliya badan qof baa xanuunsaday ilbaa meel laga soo qaadi marti baa joogta hawshaas la soo qaban shaqo xamaal baa loo baahan yahay qaraaba timid oo ina soo salaantay boqolaal hawlood baa kugu furmi markaad qurbaha halkan timaadaan wixii mashquul reer idinkaga furnaa iyo qaraabo iyo tol oo dhan uu idinka haray maxaa soo haray markii waqtiga nasashada iyo seexashada laga soo reebo idinkii waxbarasho isku soo banaanaaday in qurba la galay waa danta waxbarashada oo hadday noqoto reerkiina adoo jooganada waxbarato iyo waxbarashada waagii hore diinta waxa la yiraahdaa waa loo xereeyaa culimadii horena markay meel wax ka bartaan meelo kale ay aadi jireen dadkii hore ee Soomaalida wax bartayna in reerkooda la joogtay waa dhif iyo naadir taariikhda muslimiin mujtamaca bashariyaduna waa sida qaalibkeeda inaad wax barashadu fikir badan bay u baahan tahay waqti badan bay u baahan tahay cilmigu fanniga aad barataba waa bad markaad waqtigaaga oo dhan siiso wax yar ku siiyaa ilaahay tawfiiqdiisa kadibna hadba inta dadaal iyo waqti ku bixiso baad midhiisa goosataa reeraha la joogo iyo wadankiina iyo dadkiina dhex joogtaan waqtiga aad huri lahaydeen bay idin suura gelin waayaan shaqada hadda baajistaar ku diyaarinay jaamacadna maaw kulliya jaamacadna farci buu maamula ka aha muxuu halkan u jooga xagii hadduu joogo baxsiga ma diyaarin karo intaasoo hawl iyo shaqo u taalo waagii bariyaba 100 hawlood baa ku soo baxaysa si uu u diyaariyo waa inuu dhagaha ka furaysto meelaan loo shaqo looga dirsanaynin uu tago oo reerkii iyo caruurtii iyo shaqadii ka soo dhaxbaxo inta joogto laakiin Soomaali waxay yiraahdeen madax muuqda iyo mindi saawira midna lagama samreeyay lagama qoosto midna waxba karin oo la iska dhigo hadhow markay wax goyso u baahato iyadii afka xumeed baadala qaadan bal ku dayn baadhi qof muuqdana ma shaqo baa loo dirsan mashquul mu gali waxbarashada iyo qurbuhu ma kala maarmaan laakiin inay kala maarmaan waxay ka dhigan tahay in waqtiga laga faa'iideysto hadda ardaydiina meesha joogto yaa xoolo u dhaqdaan yaa dukaamo uga shaqaysaan yaa xafiisyo ugu kala hadaan yaa caruur isbitaal u geysaan yaa qaraabo u soo dhaweysaan yaa wax u qabataan ma jirto de ujeedadu timaadeen haddana dhinaca kale dadkaagii baad ka timid dalkaagii baad ka timid meel cidla aad joogtaa inaad safar gasho maanta haddii aadan meel la aadin oo safar yar aado markaad saa u dhaqaaqdo oon iyo gaaja ku qaban jirin baa ku qaban guriga haddaad joogto waxaa laga yaabaa saaka quraacad ilaa casar inaadan gaajo waxba dareemin laakiin safar ma u dhaqaaqday saada diyaaradda u gashaan idinkoo garoonka wax ka sii cunay oo makhaayad iyo shaah iyo sandwiich cunay diyaaradda markay saa u kacdaba
soo ma doontaan durbe inay wax keenaan markaad maskaxdaada gelisa safar baa tahay adiga dhan waxbaa kaa maqan dad baa kaa maqan dal baa kaa maqan danaad qabsan lahayd baa kaa maqan asxaab baa kaa maqan qofku intaasoo duruufo aadan ku sabirteen hadda ku qaadan filayn inaad ku qabsan lahayn baa ku qabsanaya maxaad u sabraysaa maxaad cidlada u aqbalaysaa maxaad dadka uga fogaanaysaa ilo dhalinyarada u badantihiin dadka qaar baa aabbiyi hooye oo ilmo ka soo tegay maxaa intaasoo dhan loogu sabray inaad wax barataan saa darteed waqtiga inaad ka faa'iidaysataan baad u baahantihin waddanku waddankiinni maaha meeshana deegaankiinni maaha waqti go-an baad joogaysaan jaaniskuna waa muddo kooban jaamacadaha dhigataanna sanado go-an baad kaga baxaysaan reerihiinna dadkiina biilka bixinayana waqti go-an bay ku xisaabtamayaan ubadkii iyo ilmihii idinka yaraana waa idin daba taagan yihiin oo kaalintaa biilka inaad banaysaan oo galaan bay rabaan meesha dee dhagax yaalla ha noqonina u baneeya booska dad baa idin sugaya dadna culays baad ku haysaanaya biil ee ka dulqaada idinna wax raasamaal oo lala noqon karo waxbarashaha la soo laabta laakiin 4 sano iyo 6 sanona waan maqnaa waxna wax gacan faramaranna waan la soo noqday wax sax ma وإناد النقطان سيدي لو يري لقد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل إناد بعض موددي يكون الدربية تشيفك على نقل النقطة الله فكر يا مسكح النقطة أدور راري أمد بدني كوت تشان يسوع كو حساب تميس أنت هلك تشوكتان راري هتكتي مع دين قاربا بيل كأيدين سينا يان يجا بيل كجريه ذو كجوا أو يجونو كجوا الديار لكن إذا كان إذا كجوا يندوني الصحبة إن تقول بالجدان إن الجدار هذا فرفردان وقت جنا أروح معنا يعني السوشيال ميديا كله مثال هو الذين صادر أيضا بران وحصل حسمها حديث 4 سنة جوكتان كرسي قاعد فرد قاربا سكولارشيب كوتشو بقولالي يكون يال ربتي بيسوي كرسي جيه هلاي إبر بكلام نخذي حاسم عقلي مقرادي تدنما تدنما معها ديننا معها شخصية حموي حديث عاد صور لعبتان قفك سما وحفي عنبران صور لعبتو مركا صور لعبتو ميلها تقليسان يشقوينكو محا شهادة ودتها كلية معها محا تقعنا قفك صور شقيدين سيني انت بداني ريكوركيني وحبراش ديبو فيرين امتحاننا والدين كقادي markaad gashaana waa la idin fiirin waxaad sheeganaysaan soo baratay inaad taqaanaan iyo in kale intaasoo waxbarasho shahaadooyin la tegay baa imtixaanaadka ibar qaaday maxay isu ceebeen haddana imtixaan baan meel ka galay oo ibar baan keenay wiilkii iyo gabadhii ilmo hebel ahaa intaasoo sanana waxbarashay ku maqnaayeen ninbaa waxaa la yidhi u xereeyey reerahoodii buu ka tegay deegaanka reerkooduna waagii hore axad wax lama baran jirin حرية شيخ الراعي حرمرودي بنقضي حرمرودي بطعنا كوا حرتو مركي وحقرصانا يسو إياه خدمة يوي يسوى حبابرتين وخدمة شيخ مركو 10 كآخريها ينا كتاب كمان نجيستي وتشيبيا ساسوي ناس كويا مركي مرتين لا جوجتنا واقفا ليا يسوي تاكتي كذا يسوي حلا يسوي الحرو بو يقانا لكن هم صبرا مالك دمبور ريرو هذا كسولات تمساجك مركو يمد reerkii oday baa istaago wuxuu yiri war nin cid oo wax soo bartay baa yimid dadkii kale meelaha waagi hore wax noo bari jiray ciidaha kale iska tagaan isaga baa la istaag wacdi uu reeyay wuxuu ilaahay qul wallahu yiri ahad allahu samad uu ku daray sida kuma daynina lam yarid walam yulad buu raaciyay walam yakul lahu kufuwan ahad buu gadaal kaga soo xiray wax kale uu yiraahdo ma yaqaan nin baa istaago sheekh adiga akhriyay annaga waxaan ma ka saynay noo la qabay baa lagu yiri waxaan akhriyay inta ka maray quraanku bidiic waayo lama laqbaynayo
ninkani qulwala ma laqbayn karo 10 sanana xer buu ku maqnaa saasar rabtaan inaad noqotaan ina 5-6 sano iyo 10 sano joogtaan waxbarasho iyo qurbo la idinku biiro idinka waxba garanaynin soo laabataan saasar rabtaan ama shahaado aqashan aad soo qaadataan darajo hoose ku taal ama waxa aad soo baratay wax qof macna leh u maqnaadaan ahayn waad imanaysan halkan dasa joogaysaan takhasus wuxuu dooranayaa aan waxba goynin maxaa sababa kana fudud buu dooranayaa kana asaga ama ummadda iyo mujtamaci uu ka yimid faa'iido uma dooranayo isagina binaa daati kuma sameynayso oo marka hore macna ma lahayn mujtamacina waxa faacalo soo noqon maayo laakiin dablaan aga jeedaa ma taqaanaa waaga hore dagaalka Soomaalida dabliya waran la rag u kala bixi jireen in qori wati iyo ninaan qori wadin waran iyo wax ku dagaalamaya seef iyo dabluhu ka horeeyay ragga waa ka fiicnaa nin baa qori jajaban oo dhicin buu soo qaatay markii soo istaagay ku wareede qorigan ma dhacay maxaad wadataa iska daawiri dabla weyn uga jeedaa iska daawiri soo dhicin laakiin markii ragga la kala saarayo dabla xagga hamar qori baa wata xagga mari hadaad uga jeedaan dablaan uga jeeda haddaad rabtaan oo shahaadaan wataa maala yacni aad uga jeedaan dee waa baab gaara laakiin waxaad ogaataan waagii dadka dablaan uga jeedaa lagu siiri jiray way soo dhaaftay waqtigiina ka faa'iidaysta qurbaha qiimaha waxbarashada u leeyahay oo mashquulkii dadka iyo reeraha iyo deegaankood ka soo dhaxbaadeen way wad ka soo dhaxbaadeen maxay ka dhigan tahay waqtigii dadka iyo reeraha geli lahaa waxbarashada iyo buugga iyo kitaabka iyo casharka hadda dadkana dadkina wuxuu qabanin waxbarashada aadan gelinin gidaarada iyo social media aad geliso waqti dhumiso taas waa qodobka koobaad labaad aan rabaa inaan iraahdo waqti badan aad gelisana waa idin ka baahan yahay waan idin dardaarmaya qodobka saddexaad aan rabaa inaan idin dardaarmo waxa weeye al-i'timaad ala dhat qurbaha waxbarashada loo soo galay ama qurbaha la yimaadaay waxa ugu badan ee laga faa'iido waxa weeye al-i'timaad ala dhat iyo inaad barato darafka kula soo darsa iyo deegaanadan aqoonin iyo dabeecad kugu cusub eedadan dadkaagii ahayn iyo duruufo aadan filaynin inaad saad ula qabsan lahayd ee aqlum ula samayn lahayd inaad maarayso marka reerkiina joogtay dhalinyarada ahayd aabbaa kuu fikiraya hooyaha kuu fikiraysa walaalaha kuu fikiraya wixii soo baxa alla sidan aad jirto ilaahay waad kula caaradaysaa waa lagula xallinayaa waa lagula furdaaminayaa meeshana biil ka dhamaaday meeshana qof sidan igu yiri halkaasa wax ka soo booday adiga dhani ilma caruur oo la hayo oo la wadaad iska tag marka qurbaha soo gashay waxa weeye adiga dantaada dad cusub baad u iman dal cusub baad iman duruufo cusub baad u iman maalin kasta waxba isbedeli waxba ka hor iman saad dad ula tashan lahayd saad u maareyn lahayd saad ula qabsan lahayd saad ula noolaan lahayd saad caqabadaha kugu hor imanaya ugu sabri lahayd saad uga gudbi lahayd qofka maskaxdiisii iyo shakhsiyadiisii iyo isku kalsoonidiisii bay dhistaa gurigiina markaad joogtana xildhibaan ku carar adeer ku carar aabba ku carar walaal ku carar hebel u tag ila xallidhe halkan laakiin adigu duruuftaada xallisa wey haddaad reerkiina iyo gurigii joogtay oo waxaad rabta iska samayn jirtay dad baad guriga la degay halkaasay ka bilaaban gurigaa dadka la degtay dee nidaam iyo xeer baa lagu wada joogi hadday nadaafad tahay hadday cunto tahay hadday jiif iyo soo jeed tahay hadday waxshidi iyo wax dhegaysi tahay haddii albaabka sida loo xidhayo loo furayo tahay waa in dadkani aad isugu timaadeen guriga waxaad ku wada joogtaan jiro halkaa waxaad ka baran dad in xuquuqdooda la ilaaliyo in heshiisyo la galo heshiisyo la ilaaliyo kuwa qoran iyo kuwa curfiya dhaqana labadaba in la ilaaliyo baad baran Soomaaligu waxaan nahay dabeecad meeshan hadduu xoogay ka yar gaari waayo uu ka wareegaa carabtuna waxay yidhahdeen man thabata nabat qofkii meel si fiican uga dhigta marka dambe geed iyo hoos iyo midhow yeeshaa sida ay yiraahdaan qofkii meel ku hakan waaya boodbood badan beer la'aan baa laga qaadaa waad booday halkan goortaad si fiican u fahmi lahayd waad ka tagtay
xoogay inta horaa la jabaa marka dambana waa lala qabsadaa Soomaalidu sabir la'aanta waxa weeye inta hore jabka markuu arko markii uu la qabsan lahaa uu miduu jab cusub bilaabu aadaya cusub buu aadaya jabkii buu alif ka soo bilaabaya Belgiumka waxaa la yidhi safaarad baa fiisa saf loo galay dad badan in Soomaaliya ku jiray safku aad buu u dheeraaya markaasuu kolba saas u fiiriyaa uu qoraansada mid Talyaaniya baa u yimid kaalmo Soomaali baa tahay ku yiri kaasoo haay maxaad ku garatay sabir darrada ku gartay intaasoo dad baa ka horeyso iska taagan adigu waa taagnaan laadahay kolba qoraansanaysaa kadib wuxuu isku dayayaa ninka inta shahsiiso sida inta uga hormarta halka saama ka jirta tan ma ka bilowdeen waxaan rabaa inaan idin raahdo mujtamacu wuxuu inaga fiican yahay sabirka xadaarad baan galay magaal baan noqonaynaa baan niri tacliim iyo waxbarashaan galay kadib dunidan xayaatadan mucaqadka ah ganacsigeedu waa mucaqad siyaasadeedu iyo andimadeedu waa mucaqad xuruubteedu iyo silmigeedu waa mucaqad sida fuqahadeena ay yiraahdaan buyuucdii hore laga hadli jiray buyuuc uquud basiita yahay waa hal aqdiya uquud hadda laga hadlay buyuucda ana waa uquud murakkaba saddex afar aqdi oo isdul saaran waay buyuucdii say uquuda murakkabada u noqotay mucaqadka bi siyaasadeena mucaqad u tahay oo dagaalkii mucaqad u yahay boqol fiila is wada dhaaf nolosha wada mucaqad keen galay deganaan iyo sabir iyo kasal gaar bay u baahan tahay sabirkeeni malihi waxaan filayaa Soomaaliya haddaan ay guud ahaan inaan sabir yarna waa isla qarsanay Soomaa qoladan la joogtaan ima sabir yar iyo sabir badan ka qaata bari jiilka mujtamaca hogaamin doona waa idinka umada idinka madax u noqon doona idinka culimo u noqon doona idinka ganacsato u noqon doona idinka salaadiin iyo waasi u noqon doona idinka hogaanka umada noqon doona dabaqaadka kala duwan inta hadda joogtay waa in hawlgabad iyo maalmo kadib hawlgab noqon doona bari umada hogaankeedii markaad noqotaan sabirkii iyo dulqaadkii ilmaha dhali doontaan inaad bartaan kuwa ardayda idin noqon doona inaad bartaan kuwa aad hogaaminaya maamul u noqon doontaan idinka hoos shaqayn doona inaad bartaan sabirka iyo dulqaadka inaad bartaan tusaalaan uga jeeday mujtamacaadkan wixii khibrada iyo waxa inaga wanaagsan yihiin ka qaata waxa xuna ka qaadanina ardaydeennii hore qaar baa intay qurbaha reer galbeedka aadaan bay inta dhaqanka xuna soo qaadan jireen waxbarasho loo diraa Jarmal baa la geeyay Ingiriis baa la geeyay Italy baa la geeyay Mareykan baa la geeyay Russia la geeyay Carabahaas la geeyay inta ciyaal suuqnimada iyo khamri la cabiyo sigaar la cabiyo riwaayadaha la galaayo shaneema la tagaabo ka soo baran Ingiriiska waxaan ku arkay 1995 nin PhD ku diyaariyo Soomaaliya aad uga hadlay siman meel la isugu yimid sidan oo kale aad uga hadlay rag kale oo meesha wax ka bartaa la joogay raggii uu aad u maagay markii isagu PhD buu watay doctora raggii uu aad u maagay raggu maagaya nin master IT ama xaasuub aw wada jira ninkaas xanaaqay oo markuu ka baxay hadalkii wuxuu yiri hadal fiican baa tiri laakiin aan ku dhaqantaa ficilay wuxuu jaamacad baa ka baxday oo master baad qaadatay oo PhD baad diyaarisay dhaqanka reer Yurub baad ka diyaarisay ee doofaar ku dhaqan jireen annaga ma doofaar la dhaqanna bari buu hadda dadka iyaga aad u geey waxa la bartaa tiriya laakiin doofaarka say u dhaqan jireen iyo dameeraha say u raacan jireen inaad dalkaad ka timid inta halkan PhD ku diyaarisay kula noqoto hadda dameero dhaqo inaga waxa baan dameeraha say loo dhaqo bis doofaar baan dhaqanaaba waxaan rabaa inaan ninka PhD-ga qaatay waqti intee dhan buu jaamacad iyo master iyo doctora ku bixiyay maxaa macna loo iska bartay dhaqanka Yurub hidahoodii iyo dhaqankoodii uu baranaya wadanka markaad timaadaan wixii macna leh ee ummadii anfacaya ka soo barta wixii wanaagsan dhaqan iyo dabeecada ka soo qaata wixii ay naga hooseeyaan inaga liitaan
بالذي هو أدنى يستبدل بالذي أدنى هو بالذي هو خير ما كدقنا وحي وناكسن اللي أنت كتنازشان وحنا قاضمنا ليس هذا الله بركة وركوا هذه كبدي الله يوافق شيء خيرا الدنيا ربي واسكله ساوح دونا بهية ساوح دونا منعي وديدة قفل بين غميدي الدنيا هواي هموم بوليه هواي هموم تاسي ربيتان بعد لا هاي تدالي اسكت دينا والبحن إن هذا ما كم إذا إنات كمشته ولا غيابه لكن أنا هرجع شيء أنا هرجلين ذلك هذا مركز لقى صوت تبو دونيتان كربي بيكون حرام ده سبحانه وتعالى لا يعبسيه سبحانه وتعالى وحي السبب النقطة إن همي هذا وناكسن الله هاي الدنيا دي آخرة بعد كده دان تعليم هي وحبرشين الملك قال نرمنا haddii aan maamul iyo xukun iyo siyaasad meel inuu ka gaaro qofku ku haminayo doonayo hadduu adduunyo iyo ganacsi iyo dhaqaale doonayo hadduu guri iyo reer doonayo hamigaagu dadaalkaaga kadib ducada ilaahay waa waxa koowaad ee laga doonayo isaga waxaad uga baahan tahay adduunyo iyo aakhiraba inaad weydiisato isaga inaad barido inaad baridana waxay u baahan tahay inaad xiriirka alla leedahay wanaajiso maaha oo keliya waa iska soo booday oo waan bariyey ilaahay waa nooxaan rabay ii sameey adna waxaad rabta samayn maayana sida badan ma shaqayso